dood cilmiyeed looga hadlayay afka Soomaaliga oo maanta ay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ay ku qabatay magaalada Muqdisho waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale marti sharaf iyo abwaanin iyo qaybaha bulshada idinta Soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Siciid Jaamac Ali Qorsheel Soomaaliga ka qayb gashay waxaan ogaa iyadoo Soomaaliya luqadda koowaad inay tahay Soomaaliga dowladda ku shaqeyso talabaad tahay Carabiga saddexaad tahay Ingiriisiga waxaan aragnay wixii oo la daldaray af Soomaaliga laga tagay wax walba la sameynayo iyo luqadda lagu sameynayo waxaan isleeyahay marka war ma dadka xasuusisaan in dastuurka Soomaaliya ku qoran tahay in af Soomaaliga uu koob yahay وحفيظ الدولة كنت مانتا قال جواه ونقلت شوقه بدمي هذا الكسرة كنت عد حاشي وأن أراك رهنتي وأرياش الصومالية وهذا فرق تورس كونه هاري أنا كشرف بينوتها موت صار شرف بينوتها بيوتها إلى حفلتنا ولو قبيو يوحي صورة حقه هذين والله هاي قفك كذا حاسة وحلفت جيسوا علمي إن بحياة صومال وهذا كملها يريون أنا حضرنا هنا هذه الكرة سكرتان أحمد سراء يبوتان وحاجة مرتدى أنه هاي مانتا حوش الحب كذا ولا وأقوي هنا لفرتنا فرية إيه قال مركه هرت أخنتن وحبضن وحرمنا نداي يلفت وداي كهرلان مركه أخنت وحن لنا وحويان وأخن runtii waxaan ka tagay aqoonyahanada ama kooxda think tank center laftigooda iyo bahda saaxiibada markal mukahana iyo think tank saaxiibadooda oo halkan jooga inta waxaan leenahay soo dhawaada waxaanu ku soo dhawaynahay gacmo furan dhanka kale qaar ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa halkaas ka soo jeediyay gabayo ku saabsan af Soomaaliga aabbayaasha joogiyo hooyadeen iyo akhyaar iyo waxgaradweyn inta aanay ajalanay il iyo xabaal gelin haddaan lagu agbadan oo aan aqoonta laga qorin oo heeso amuurtaas eedeeda maalihin ninka kiisi aasee afkii hooyadiidee abnaqiisi tuuraa isagaa ismoodaya ma ahaado qolo kale aqoon-yahaniin iyo marti sharafkii ka soo qayb galay madasha ayaa sheegay in ay af Soomaaligu la xoojiyo maadaama uu yahay luqadeena koobaad ay noqono ummad kaliya way istiraatiijiyad cusub markaa jirta istiraatiijiyad cusub ka hadlay xawii si af Soomaaligu uga noqdo lingua franca xawii afka la isku afkarto ila tartamir ku jiraan hadda waxa bari hore la tartamayay laakiin hadda ترسل عيش بين البيت. مركز استراتيجي اللي سوينا نوع بحي. شيء اللينغو فرانكو ونقولنا. أنا ما هنلوكو. إن دق لوكا بيترو أفكار. كل أبيو. بس كده أنا لما اشتري رجلنا. لما ما يشتري واحد مش يشتري. لا بيترو. أن أفكار الأبيو نحوه نيه. لكن وحبه هي إن فورا بونا قبته ما لي لبعض ونيجي وحياه وكان لقى الدولار مكا وحسها لقاته هيك مركا علومته بتاوي سقطها تتبع ولا 4.5 شيء مرة واحد يروح أركت لنا نظرية لنا في اللغة العربية في الإنجليزية نبحث لها وحوي وثيري نيجي لنوتي أينشتاين وحكي relativity واتن شرح حسن فيزيكس بان واتن كون كلهم بيشرح حسن كل يبى سميه لكن وحوي شرب الله قط وحوي ثير ما كقف كانوا بد يمي شاب إنه نعشوا حد باتي وحل شو ده إني كم عيسى لبيني أفكا عيسى لبيني مد بسوق أتمد بدي سوق أتروح دورة كفتو وحي هدي أي شقيان ولا قادر هدي شقيان وين إذا قدر بطوله إنك ما حوي 4.5 ما علم 4.5 شغل معه هي لها علم جامع 4.5 لما جري هلا قاعد شغلتها شو قرمش
marka naxwaha imika labada naxwo ugu waaweyn midna aniga ahay midna waxa la Cabdalla Mansuur laba waxaan ka kala mid laba version weey aniguna waxaan ka yimid qaybaha hadalka isaguna wuxuu ka yimid qaybaha hadalka Laatiinka ayaan ka yimid isaguna wuxuu kaga yimid qaybaha hadalka Carabiga waa laba version oo la yaqaan wali version saddexaad ma arkin laakiin haddii jirta hal keen iyada halaga doodo wixii sax la qaato hadalkii dhibaato uma qabno waa afkeennii waa Soomaaliga marka qof kasta la jaddu doon waxa ku hadla sida dhibaato looma qabo wax laga bedelana uma baahna labada kaleeto madama wax nagu soo kordhay yihiin oo 46 sano laba bilood iyo 20 cisho ka dhiman markii lagu qaatay af Soomaaliga la qoray laakiin halkii maalintii berigii waxay ahayd guddiga af Soomaaliga waxa wanaagsan baa la qabtay haddana af Soomaaliga la qorina burburkiina inagu dhaco maanta Soomaaliga ma jirteen cid waliba qof waliba wuxuu ka mid noqon lahaa cidda uu luqadeeda yaqaan waxa isku keenaya waxa weeyaan si wanaag ama dadkii isku gaaraya markii uu hidha burburay waxa weeyaan in far Soomaaliga ay burburay laakiin wax waliba horumar bay u baahan yihiin bilmata luqooyinka waxa ugu qiimo badan ama ugu waaweyn waa Ingiriisiga shantii sanaba dictionary cusub baa soo baxa oo u baahan wax laga barto wax lagu kordhiyo marka af Soomaaliga isagoo u diraba waxba lagu kordhin yani inkastoo niyo wanaagsan jirtay dawladda iyo nidaamkii waqtiga jiray oo wax weyn la qabtay oo waxa ila maanta lagu naaloonayo ama lagu soo gaaray ay tahay haddana qaladkay ku dhacay waxay ahayd markii fartii la qoray baa guddidii af Soomaaliga la sii kala dhacay waxa loo baahnaa in sanad walba muraajacad la sameeyo oo marka af Soomaaliga la gaarsiiyo gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay ka jaamacad ahaan ay xoojinayaan luqadda afka Soomaaliga sida daraadeedna ay furi doonaan kulliyad lagu barto afka Soomaaliga muhiim u yihiin waa afka Soomaaliga muhiim u ahaya barashadiisa laba arrimood oo kaliya soo koobaya jaamacadda ummadda oo kaalinta ay ku leedahay af Soomaaliga ودكتور وحنا قبلنا كلية المحاورة لغتها أو بحيث تجري في الصومالية وحنا كمان قبلنا كلية وحبرشة أو أيضا بحيث تجري في الصومالية دليلتي يا معلمتي أنت كبعدي وحنا ميكروفونك يسوون اللي وصل دويي وزير كحيانك وزارة وحبرشة الدولة فدرالك الصومالية كأي سبب لين تصومالية أبويهنا أو تسوكينك dadka bilaadanka in la isku keeno wax ka dib badan ma jiro horta taas ogaada dadka marka wax isku keenay fikirkan abuuray tan isku keenay aad baan ugu mahadnaqayaa gubay iyo wasiirkeygii hore aad baan inta ugu mahadnaqayaa asxaabta kale la shaqeynaysa dhamaantood aad baan ugu wada mahadnaqayaa gabagabadii waxaa munaasabada soo xidhay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi isagoona sheegay in af Soomaaliga ay xoojinayaan sida daraadeedna uu arintaasi kala hadlayo guddiga dastuurka ee baarlamaanka labada aqal lana xoojiyo afka Soomaaliga xarunta kala soo jeedinta oo aan arkayo xaruntu inay noqon doonto mustaqbalka heed inoo iftiimisa oo sidaa isugu keenyeerta oo aynu wax ku wada qabsan waxaan kale salaamayaa odayaasha dhaqanka waxaan salaamayaa janaal jaamac maxamed qaalid iyo la taliyaha madaxweynaha dhinaca sharciga wax badan maanta halka waa laga sheegay waan soo dhaweynaynaa abwaaniinta Soomaaliyeed guud ahaantood waan ku soo dhaweynaynaa anigoo arrimo aan aad hadda xalin aan helo aynu u baahannahay waxa weeye siyaasadeenna yani madaxweyneynu sheeganaa waa ayuusa madaxweyne baarlamaan xildhibaan guddoomiye wasiir inaynu helo weeye erayo munaasib ah inaynu helo oo hal madaxweynena aynu yeelanno mas-uuliyiinta kalena aynu helo erayo ku habboon كلينا وذا وزير النقل يعني دولة الدحاية لتوزيرنا
dowlad goboleedyadana aynu u helno magacayo ku habboon abwaaninta Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa erey bixinta inay isku dayaan Bible la soo helo aad baad mahadsantihiin waxaa kolkaasi waxaa weeye Soomaaliya ha midowdo hal baynu nahay yaynaan qabiil maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere Star TV magaalada Muqdisho.